Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaynu ka hadli doonaa waa maxay daljirka dahsoon ama taalada daljirka dahsoon sida ay Soomaalidu u taqaano. Taalada daljirka dahsoon waxay astaan u tahay qubuuraha askartii Soomaalida ee u dhintay difaacidda Jamhuuriyadda Soomaaliya balse la aqoonin. Waa calaamad muhiim ah oo caan ku ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxay ku taalaa agagaarka dhismihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. 22 sano kadib burburkii Soomaaliya ayaa dayactir lagu sameeyay taaladan oo hadda aad u qurux badan. Waxaa jiro xusuuso u gaar ahaan ama qaar ka mid ah halyeeyadii qaranka Soomaaliya sida Axmed Gurey, Xaawo Taako, Xalane, Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, Sheekh Xasan Barsane iyo Dictor Xuseen Xasan Kadare, kuwaasoo dhammaantood ay taalooyin uga dhisan yihiin magaalada Muqdisho. Taalooyinkan kale ee ugu caansan Soomaaliya ama taalada kale ugu caansan Soomaaliya waxaa ka mid ah taalada SYL iyo taalada Dhagax Tuur. Hase yeeshee, geesiyaashii soo maray ciidanka Soomaaliya ma aha kuwo faraha lagu tirin karo, waxaana ka mid ah xubnihii ururkii xornimo-doonka ee SYL. Sidaas awgeed, waxaa guud ahaan dhammaantood wakiil ka ah taalada daljirka dahsoon. Goobtan waxay horey u ahaan jirtay fantasiyaha shacabka iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Maalmaha Jimcaha waxaa ka muuqdo bilic weyn oo waxaa lagu arkaa dad labisan oo u soo damaashaad tagay, sawirana ku galaya. Xilliyada qaar waxay dhaqdhaqaaqyadaas soo jiitaan indhaha dalxiisayaasha iyagoo fursad u hela in ay milicsadaan quruxda dhaqanka Soomaalida iyo labiskooda. Laakiin mararka qaar waxay taalada daljirka dahsoon martigelisaa mudaharaadyo kala duwan oo ay sameynayaan dadweyne cabanaya. Dibadbaxyada ka dhacay sanadihii ugu dambeeyay ee sida weyn loo xasuusto waxaa ka mid ah mid ay haweenku ku sameysteen 2016 markaas oo ay dalbanayeen in qoondada dumarka lagu tixgeliyo dowladdii loo dhisayay waqtigaas. Sidoo kale, waxaa lagu xasuustaa taalada daljirka dahsoon in uu ka dhacay mudaharaadkii ay shacabka reer Muqdisho ku taageerayeen dacwadda badda ee Soomaaliya, kaas oo ku yimid baaq ay jeediyeen maamulka gobolka Banaadir. Waxay dadka ka qaybgala mudaharaadkaas oo aad u badnaa haween muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan go'aanka Kenya ku aadan biyaha Soomaaliya. Bishii Abriil ee sanadkan 2020 waxaa daljirka dahsoon ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay shacabku uga soo horjeedeen falal dil ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Marka la gaaro 1 bisha Juulaay oo ku beegan xornimada Soomaaliya, waxaa ka dhaca munaasabado loogu dabaaldegayo xusuustaasi. Madaxda waddankana waxay dhigaan ubax lagu sharfayo halyeey kasta oo astaan ay u tahay taaladan. Xitaa inta badan khudbadaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir wuxuu shacabka uga jeediyaa fagaaraha daljirka dahsoon. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dadweynaha ku nool Muqdisho kula hadla halkaas, taas oo aad moodo in ay tahay sababta siyaasiyiinta Soomaalida ay ugu daneynayaan in ay taageerayaashooda isugu geeyaan daljirka dahsoon. Soomaaliya gaar uma aha daljirka dahsoon.
Soomaaliya oo keliya ma aha dalalka dhisay taalada daljirka Dahsoon, balse waxaa jira wadamo kale oo sidaas oo kale u mamnuucay ama u maamusay halyeeyadooda aan la garanaynin. Munaasabadooyin caalamka ee taalada daljirka Dahsoon ee ku taalla waxaa ka mid ah Moscow oo ah caasimadda dalka Ruushka, iyo magaalo madaxda waddanka Talyaaniga ee Roma. Intaas oo keliya ma ahan, dalal kale oo aad u badan ayay ku dhisan tahay u dhisan tahay taalada daljirka Dahsoon oo kale, oo ujeedadu ay la mid tahay midda Muqdisho. Dalalkaas waxaa ka mid ah Argentine, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Czech Republic, Masar, Estonia, Finland, France, Hindiya, Uruguay, Indonesia, Jarmalka, Iran, Ciraaq, Israa'iil, Jabbaan, Urdun, Lebnaan iyo Malaysia. Intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa warbixintii aynu ku diyaarinay taalada daljirka Dahsoon.